inaan uga mahad celino xafladan wanaagsan ee maamuuska leh ay galabta noogu yeereen inaan uga mahad celino oo lagu talagalay iskuulkan Khalid bin Waliid in laga hadlo arintiisa ee wasaaradda waxbarashadana loogu yeero waxaan rabaa in halkaan uu ka cadeeyo iskuulkan tala badan bay ku lahayd wasaaraddu magaca ahaato si shaqo sheegay masaajid dhexdiisa waa magaca lagu soo baxshay masaajid dhexdiisa waliba bandiirada lagu bixina gaalkacyo masaajid dhexdiisa rag badan oo dhalinyaro ah oo sida Duraan iyo Macal Umar Macal Awil iyo Duraan Cabdi Ali ragii ka shaqeynay rag badan halkan fadhiyo ragii ka shaqeynay kamid ahaayeen iyo Bile iyo rag tira badan in kala yiraahdo Abdulsaaq iyo rag badan oo ka shaqeynaya meesha fadhiya oo telefoon nafti nagu keena oo la war iskuulka hadaa la aqoonsan balaada arka ka soo dhacaysa sida awgeed waxaan ku qasbanaanay inaan imaano tala bixino dhismahan in saa loo dhiso bixino gadaal dhulkana in laga helo bixino in magac loo sameeyo gaar ah bixino in la isku keen arday uniform loo yeelo bixino intaas iskuulku soo jiray wasaaraddu kama dhex bixina way ogay mayna sadagalayn mana is aqoonsi lahayn hadaysa wala jeeda kala hayn oo is inay aqoonsata rabin yaani intaas kama is shaqeyseen galabta wuxuu marayaa meesha ugu fiicnayd waxaan qirahayaa iskuulada oo dhan sidaan hadii laga dhigi lahaa si gaar ah u soo dhaweyn lahayn anagu waxaan ka mid ahay dadka ugu horeeya ee jecel in diinta iyo la isku dabaqo iyo maadiga oo qofka soo baxaya uu noqdo qof dhinac kasta ka dhisan oo wax kale u baahanay qof uu noqdo malaayiin qof oo diinta aan haysan qof ku soo dari kara inuu noqdo waxaan rabaa inuu noqdo oo jecelnahay ardaygu manhajka Soomaaliga waxa ku jira inuu ahaado waxa inuu arday islaam ah u yahay oo diinta islaamkuna ka muuqato qofka manhajkan lagu tala galay inuu waxa laga soo reebay manhajka wax khilaaf dhalinayo dhan ayaa laga reebay waxa laga reebay in si gaar ah loogu xadgudbo dad ama ummad ama ayaa lagu reebay manhaj fiican oo tarbiyadiisu wanaagsan tahay oo laga fakiray oo lagu tala galay oo lagu sameeyay manhajka ahlus sunnah wal jamaa lagu saleeyay weeye manhajka wasaaradda waxbarashada waxa la bartaa oo iskuulka laga bartaahay waa maadooyinka oo isku jirta sida Carabiga oo ah tarbiyada islaamka oo diintii ah macnaha yaani Carabiga iyo tarbiyada islaamka oo diintii ah labadaas waxay kaabahayaan dhinaca diinta waxa kale xisaabtii ayana ingiliiskii oo ah midka aan rabno qofka diinta ka dhisan inuu dadka muslimiinta gaalaba wax ku taro gaaladana ku soo islaamiyo muslimkana uu intifaac ugu yeesho sayniski oo ah caafimaadka midkii caafimaadka loogu tala galay oo qofkii xanuunsada oo yaani uu la falgali lahaa oo dhakhtarka qofkii u gudbi lahaa ah cilmiga bulshada oo ah kala barashadii xoolihii beerihii dhulkii faa'iidooyinkii ah waxa soo dhan waxa loogu tala galay noloshii diin iyo maadiba way isku dhisanta culimada marka waxay ku fakareen sida iskugu habayn lahaayeen diin iyo maadiba la iskugu dhisi lahaa oo ardayga halkan jooga gacanta u soo bixi lahayn waalidiinta waxaan soo jeedinaynaa in ay ku taageeraan culimada sidaas ay ku socdaan anaga wasaaradda waxbarashada hadaan nahay waa ku taageersanahay 100% kulka midka diinta ka cararaay banaanka u carari jir ya ma fahant bahalka la yiraahdo weer sugan la yaqaan weerka ba waxa la yiri gabiyay weer ba gabiyay markaas uu yiri baaqi ma arika ma dhax baxday baa la soo ogaada inta kaleba waa laga kabtaa 10 ka abaara ma ariga markuu leynayo moogti yaani qofka marka bahalku wuxuu cunaa qofka banaanka u baxo cunaa
waxaan culimada ka codsanaynaa dadka banaanka u baxay in la soo celiyo in la tago guryaha meelaha lagu qayilayo in la tago dadka in la wacdi geliyo kuwa jiisaska oo kici karin oo guryaha jooga in loo tago la soo wacdiyo odayaasha doqoobay oo aan mararka qaarkood laga yaabo inay waxa dadku u fahansaneen in loo tago kuwa jinku ka buuxo oo diinta ka carara in la quraan saaro loo yeero laftirkooda wax ka codsanaynaa say dadkuba janno u wada galaan boqolkiiba dad wanaagsan ay nagu noqdaan sida hadda ay ka shaqeynayaan oo kala ma dhacayso hadda ka bacdi arday haduu tago meel kale aadi doono oo inta haduu ka baxo meel kale aadi doono macallimiinta quraanka waa u mahad celinayaa waa rag ilbaxa wanaagsan xadaarad leh hadda ka bacnana waxay istaahilaan ilmaha in loo wada keeno awal moogtay kuwa waxoogaa roon baa loo keeni jiray hadda qoolka fur in loo keeno qoolka fur hal yaqaan Soomaa in qoosha loo soo furo oo la yiraahdo war macallimiintii wanaagsanayd u geeya oo diinta iyo maadiga labadaba ardada u dhigaysay oo qof dhinac kasta ka dhisan yani oka hadda diinta taqaanid adoo sheekh adoo bal uu qiyaani kara sal uu qiyaani kara arbad bal uu dhufanahay waxa lagu leeyahay sheekhan horta muxuu dadkaas ninka wax bar intaas oo qof miyuu wax baraha diinta miyuu baraha maxaa la yiraahdaa Sheekh Abdul Qaadir iyo kan arbadan dakab aduna waa taala waxa iska dhigaysan in la daaweynayo way hada akhrin lahayd oo oran lahayd waratus arbada ay ugu dhufanaysid ama wiilkii soo barto oo dhakhtar uu joogi lahayd oran lahayd hebel baa durahaya adduunka ilaa adduun xun baa la marhayaa waxay noqon lahayd meel safe area oo la isku fahmo Soomaaliin inta ka bacdi iskuulkan waxaan ka gudbinaa dhammaan wixii loo baahnaa fasal arday kada filan wax kasta dhul mitir wax walba ka gudbin waa ka haynaa laga bilaabo maantana waa aqoonsanahay waxa ku shaqeynaysaan galmudug kale iyo geeda kale midna ma baahna ana kaga masuula waana aqoonsanahay ina shaqaysataan hore u socotaan bal rabaa waalidkuna waa arkahayaa waxa loo baahan yahay ardagaagu inuu noqdo arday labaas maada barta ogaada gabdhaha iyo aabayaashu ilmaha isku dhinaca laga noqdo waxa looga noqonayaa inay maadi iyo diini ay bartaan waxa looga noqonayaa inuu noqdo yaani qof wanaagsan hooyo iyo aaba waxa laga rabaa dariska laftirkiisa hadii adiga kuwaagu wanaagsan yihiin kuwa dariskana u tag intii warar kale la isku sheegi la u soo sheeg inay Khalid bin Walid la furay maalid iyo diin la wada dhigan hayo inay wanaagsan tahay hooyo u soo sheeg aaba u soo sheeg dariskaaga la waxa la dariska diinta ku yeelso lama oran waa maasantiin dhamaantiin maamul iyo mudana inta ka dhaxlaya ardo iyo culimo maanta naga bilaabo waa noo shaqo xirna nagu dar yani waxay noo tahay adinkii baa yeerahaye iskuulkana saasa ku aqoonsanahay saasa uga shaqeynayna ma ahan hore wax meel uma yaalaan hore iskaga soo daldalimayso aqoonsiga iyo shahaadada ayaa wax kaas iyo talada ayaa ka muhiimsan waxay heshana waa keenaysaa waana kala shaqeynaynaa waxay soo weydana isku tashto intaas rabaa inaan ku soo xiro xafladuna waa noo xiran tahay